kulanti wanaagsan meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada walaalayaal waxaan la yaabaa markaan arko qof isaaqa oo dhulbahanta u hanjabay waxaan isweydiiyaa miyuunan qofkani xusuus lahayn waxaan mar labaad la yaabaa markaan arko habar jeclo dhulbahanta u hanjabaysa waxaan isweydiiyaa 2 sano miyaynan cashar u ahayn kuwii shalay maxaabiistoodii sidii la ogaa loo galay waxaan la yaabaa mar kale markaan arko boqor buur madow oo kule hubka dhigis ha lagu sameeyo dhulbahanta mar kale cajiib iyo la yaabay igu noqotay dadku miyaysan xusuus lahayn kulanti wanaagsan daawadayaasheeda sharafta leh meel kastoo aad joogtaan facebookayga kusoo dhawaada barnaamij yaroo kooban ayaan geli doonaa waa live barnaamijka waxaan idinka codsanayaa inaad sheer garaysaan waqti badan ma hayo hala sheer gareeyo insha Allah hala sheer gareeyo waqti badan ma hayo qof walba ha sheer gareeyo hadduu alla idmo walaalayaal waxaan la yaabay isaaq dhulbahanta u hanjabay hadda waa 2 sano kadib anoo tii la yaaban ayaan waxaan arkay habar jeclo dhulbahanta u hanjabaysa waxaan rabaa marka ummadayda sharafta leh boqor buur madow hadalkiisaan daba taaganahay waqti yar ayaan ku jiri doonaa waxaan idinka codsanayaa inaad sheer garaysaan si uu meel fog u gaaro sheer gareeya dhulbahanta iyo isaaq waxay isbarteen 2 sano ka hor 2 sano kadib inaan maqlo isaaq maanta le waa in dhulbahanta hubka dhigis lagu sameeyaa waxaan u arkaa inay tahay riyo maalmeed marna qosol leh marna la yaab leh boqor buur madow ayaan dhageystay boqor buur madow wuxuu yiri dhulbahanta xabad mooyaane xal kale male dagaal inaan galno oo aan hubka dhigis ku sameeyno laas aanood qabsano ayaan ugu baaqayaa hoggaanka isaaq ee Hargeysa waaya iyo amaka ma xuma hadalkiisa intaa wuxuu ku sii daray in dagaalkan uu noqon doono mid ay ku soo afjaraan maxaabiistana ku soo daayaan maxaabiistee 2 sano ka hor maxaabiistee la qabtay waxaan rabaa marka ummadayda sharafta leh si dadka Soomaaliyeed ee aan labadaas si reer u dhalan ay runta u ogaadaan ummadda kale ee daneynaysa inay wax badan ka ogaadaan arrintan ay xaqiiq u ogaadaan ayaan doonayaa inaan soo koobo muuqaalkayga sheer gareeyo horta isaaq iyo dhulbahante waxay isbarteen 2 sano ka hor dagaal adagaa dhacay dagaalkaasna qabiilka Soomaaliyeed ee dagaal inta soo galay 100% laga adkaaday waxay ahaayeen isaaq qabiilkii ugu horeeyay ee dagaal markay soo qaadeen hubka dhigis lagu sameeyay horay uma dhicin 500 oo maxaabiis ah in hal dagaal lagu furto horay uma dhicin in hubkii ay wateen oo idil ay gacanta u galaan beeshii ka soo horjeeday dad marka 2 sano ka hor sidaas loo galay oo waliba aan waligay intii aan saxaafadda ku jiray aanan arag qabiil ka fulaysan oo Soomaaliyeed haddii 2 sano kadib ay yiraahdeen laas aanoodan weeraraynaa waxay ku jiraan waa riyo riyadaasna waxay u baahan tahay sida loo fuli karo in laga wada hadlo waxaan rabaa marka inay dadku ogaadaan hanjabaadan ka timid boqor buur madow waxa ka horeeyay wasiirka warfaafinta maamulka Cabdiraxmaan Cirro wuxuu sheegay inuu dagaal soo qaadi doonaan habar jeclo ayuu amray boqor buur madow in ay weerarto magaalada Laascaanood waxaasoo idil markay 2 arrimood aan ka dhaxaya ciidamada isaaq ee hadda duulaanka soo ah ee weeraraya magaalada Laascaanood kow ma ogamiya maxaabiista laga hayo bishii August 2023 inay xiran yihiin bisha August 2025 dad awoodi waayay 2 sano inay maxaabiistoodii soo furtaan 2 sano kadib ma awoodaan inay magaalada Laascaanood qabsadaan waxay ka mid tahay riyo maalmeedka yaab kale waxa kale xusid mudan dhulbahanta marqaati igaga ah dadka degan ama la degan beesha habar jeclo wallahi beentay ma geela beesha habar jeclo ee soo luma ee ciidda dhulbahanta yimaada wallahi awood uma laha in qof habar jeclo ah oo raga inuu geelaasi soo dabagalo soo raadsado waxaan hubaa in geelaasi loo soo diro hooyada ama xaaskiisa ama walaashi
reer dhan oo geeli ka soo lumay aan soo dabageli karin haddii ku yidhaahdaan ka warran waxaanu dagaal ku qabsanaynaa magaalada laascaanood wax lala yaabo sooma wax lagu qoslo sooma wallahi shan geela maanta dhulka habar jeclo markay ka soo baxaan oo ay dhulbahanti yimaadaan wallahi ma soo dabageli karaan nin walba naagtiisu soo dirsadaa nin walbaba naagtiisu soo diraa markaasaa wiilashii dhulbahantee waxa u yimaada gabar habar jeclo ah oo geel daba taagan geel baa iga maqan war aawa kii ku qabay maya ma imaan kariyo magaalada ma soo geli karayo reer marka geelooda aan raasa karin ayaa horta waxay doonayaan inay duulaan soo qaadaan maxaa ku kalifaya marka duulaankaas waxay maqleen siyaasadda la isku diiday waxay maqleen xoogaa wax yaroo ku saabsan dee dhisidda maamulka waqooyi bari waxay maqleen hartigii baa wax yar isfahmi waayey waxay iska dhaadhiciyeen marka maadaama isfahamwaa uu harti soo kala dhex galay siyaasaddii harti ay isku fahmi waayeen dagaal qaada kadibna laascaanood qabsada waa qalbi carruur waaye qalbi carruur waaye labada qof ee walaalaha ah way ku dagaalami karaan ama way isku fahmi way karaan siyaasadda laakiin hadday arrintu xabad noqoto hartigu waa midoobayaan ku xisaabtama harti uu isku gurmanayaa markay baaxashu xabad noqoto intaa kadib marka dhulbahanta ma haystaan ciidan ku filan oo ay ku dagaalamaan haddan kuu sheegayaa meel ku qoro dhulbahante labadii sano uu maamulka u dhisnaa waxa ay kaarinta koowaad saareen ciidan ay isku difaacaan hadday arrintu xabad noqoto bil kasta wiilka qoriga qaadi kara ee dhulbahante wuxuu iska diiwaan geliyey xarun ciidan ciidamada dhulbahante ee diyaar u ah inay ka jawaabaan dagaal uga yimaado isaaqna bal maanta ama xilligan waqti walbay kuu tahay meel ku qoro muuqaalkan kaydka ayuu geli doonaa magaalada burco ayaa laysku waraysan doonaa burca laysku waraysan doonaa waa xaqiiqo dhaba wallahi wallahi waa xaqiiqo dhaba inta aan ogahay ayaan ogahay dadkana u sheegi karaa hub ku filan ciidan ku filan gaadiid ku filan dhulbahanta waa haystaa wuxuu ka dagaalami karaa inta aag oo magaalada ama deegaanka uu difaacayo boqolkiiba boqol loo baqi maayo loo baqi maayo xabaddan marka hadda ay abaabulayaan cabdiraxmaan ciro iyo dowladdiisu waxaan leeyahay waa xabaddii lagu soo afjari lahaa maamulkii goori iskutaaggii soomaaliya diidanaa maamulkii diidanaa midnimada ummadda soomaaliyeed ayaa lagu soo afjari doonaa labo arrinta ugu muhiimsan marka oo dadku isweydiinayaan reerkan iyo deegaanka maxaa cadowtinimo intaa la eg loogu qabaa dadku ma jecla dhulkaas SC qaatumo ama dhulka waqooyi bari hadda la isku yiraahdo maamulka cusub in haba yaraatee maamul uu noqdo dadkuna ay kala dambayn helaan ma jecla maxaa lagu diidayaa cadowtinimada loo qabo dhulkaasi maxay tahay oo lagu diidan yahay dadku yaabeen in ka badan Jubbaland ayaa la neceb yahay in ka badan Galmudug ayaa la neceb yahay in ka badan Hirshabelle la neceb yahay in ka badan Puntland la neceb yahay why ma taqaana sababta aan loo doonayn in dhulkaasi maamul uu ka dhismo waa ku sheegaya waa laba arrimood marka koowaad waa udub dhaxaadka midnimada Soomaaliya waa Soomaaliya midnimadeeda udub dhaxaadkeedii weeyaan haddii halkaasi maamul ka dhismo qofna midnimada Soomaaliya waxba uma dhimi karo aan ku celiyo laba jeer udub dhaxaadka midnimada Soomaaliya waa dhulka hadda la isku yiraahdo ama maamulka cusub ee waqooyi bari caasimad u tahay magaalada laascaanood ayaa ah dhulka haddii ay midnimo ummadda Soomaaliyeed la yiraahdo waa udub dhaxaadkii u dhaxeeyay waana sababta shisheeye oo Soomaali adeegsanaya aan loogu ogolayn halkaas inuu maamul ka dhiso yaa diidan dowladda Imaaraadka Carabta Imaaraadku ma ogola yaa diidan dowladda Qatar ma ogola yaa diidan xitaa Turkishku ma ogola dowladda Turkiga ma ogola xataa aag iyo weliba muhiim uma ah daneeyaasha kale ee arrimaha Soomaaliya waana xaqiiqad dhab ah labo
shidaalka ceelka Soomaaliya shidaal ama batrool marka la yiraahdo ceelka ugu weyn wuxuu ku yaalaa waxa la yiraahdo holhol dhulka waqooyiga bari ee Soomaaliya ayuu ku yaalaa ama maamulka cusub ee waqooyi bari marka lama ogola in halkaasi maamul uu ka dhiso lama ogola حتى دولة الدحيح بين دي شيء مايو عد أقول مجرته ظروفير يقال إيه جنب شيرة لو بصوا جمريا معمول رسمي إنه هالكا كنشر عدة لو وجدت مرة دتك هالكا سدقن مرة ولا ليالو كنت دي شيء يعني دتك هالكا سدقن معمول أي دستين باهي وين القبض عن إلهي كبغلو دتك هالكا سدقن دباتوين حقلي أي لكل ميين لبعتك السنة للصدف haddaad adigu xoogaa yar oo kala dambayna iyo dawlad iyo dhismo aad haysatay dadka halkaasi degan dad nool oo la leeyahay anaa kule Soomaaliya kama jiri jirin laakiin waxay ka jiri jirtay dhulka hadda la yiraahdo waqooyiga bari ee Soomaaliya ama maamulka cusub ee waqooyi bari SSC qaatumo dadkaas marka dad dhana waxay leeyihiin dhulkan waa dhul ugu muransan yahay dadka halkaasi degan anaga iskale ما كوكو دعدي أديكو هوية أما أديكو دارودا أما أديكو ديجي من الفلاح وركو فرق البلاد دكان تاي وليغا ملغو يري أنا كولي وليغا ملغو يري وكبر سنتهي قل مدوغا دكان تاي وليغا ملغو يري أنا كولي وكبر سنتهي هيرشبيلا دكان تاي ملغو يري أنا كولي وردتك هالكاس دكان وابرهير لي يري أناغا إذن الله قفنا أنا كولي لليه أقلب دولة مدى جعليه maamul ay jecel yihiin cuqdadna ma yaqaanaan balaayo waxayba ka dhacdayba Soomaalida kale waxa laga yaabaa wasiirka arrimaha gudaha markuu soo dhex maro waxa warkan waa ma jartankii weeye ma jartan waay xasan sheekh markuu soo dhex maro waa madaxweynaha hawiye laakiin marka aad joogto laascaanood waa madaxweynaha qaranka Soomaaliya waa wasiirka arrimaha gudaha qof wasiira hadduu soo agmaro adigoo galmudug ama hirshabeelle ama muqdisho jooga waxa ma qiimeynaysa dadka halka degan waa dad dawladnimada jecel waa dad xanaanka jecel waa dadka xataa wax walbaba u hori kara nidaam marka adow badan ay leeyihiin waxaan leeyahay marka hambalyo gobolada waqooyi gobolada bari ee Soomaaliya waqooyi bari ee Soomaaliya dadka halkaasi degan waxaan idin leeyahay hambalyo markale hambalyo muhiimadda barnaamijkaygu marka maanta ama xilligan wuxuu daaran yahay waa arrintan duulaanka isaaq iyo qorshaha halkaasi loogu talagalay waxaan leeyahay marka saaqa wax badan oo hadda muhiima oo aan diyaar garow uga codsado ciidanka difaaca waqooyi bari ma jiro waa la isku filan yahay boqolkiiba boqol 10 ka dambayn doona waan hubaa waxaana idiin sheegayaa oo xaqiiqo ah oo gambasho lahayd dhulkaas halkaa iyo caasimadda si kasta oo waqti loogu bixiyo in la kala dhantaalo waa lagu fashilmaya waa maamulka kaliya Soomaaliya ka dhisan ee dhiig ku yimid maamulka dhiigu ku yimid dhiig rag baa god u galay gabdha naftoodii ku waayay maamul dhiig ku yimidna ma sahlana in dhaawac iyo dhibaato ay soo gaadho marka waxaan leeyahay boqor buur madow soo dhow haddaad bageelaadii soo dabageli karin haddiiba ay saraakiishii habar jeclo ay dhulbahanta u xiran yihiin waxa kaliya soo haray waa inta kale hartay oo maxaabiisa in magaalada laascaanood lagu qabto intaas waa xaqiiqo dhaba marka insha Allah godkan iyo sariiqdan dadka deegaanka lala maagan yahay boqolkiiba boqol waxay ku soo dhamaan doontaa fashil argagax iyo boholiyo hadduu alla idmo marka insha Allah aad u maasantiin barnaamijkan wuxuu ka baxayaa Facebook-ga بيجك عبد الله بلوان كرر لهذا برنامج دي البيت كأها هل كان سو مجريو مشغول لكن واحد كده وكرتها إسلام مجا عن يوتيوب عبد الله بلوان إسلام مجا الجنرال كان حتى ماشي كان الله فيسبوك بيجك عبد الله بلوان إسلام يوتيوب عبد الله بلوان وادي كده وكريسان مركا إن شاء الله دجال أضيع صو صعدة واحد بدن با أتكان دونا واحد بدن با إسكو أركض دونا مركا إن شاء الله جيجان كان الجارة ayaa loo yeelan doonaa marka duulaanka isaaq hal la ogaado qorshaha isaaq ay maleegayaan hal la ogaado dagaalkan meeshu ku dambayn doonana isha ayaan ku hay doonaa hadduu alla idmo dadka deegaanka loo baqi maayo dhulbahantana ciidan ku filan oo haysta boqolkiiba boqol
haddii xitaa isbahaysi kasta loo samaysto waan hubaa dagaalkaas iyagaa libinta helaya dadkaana ha qaldamin ummadda halkaa degan waa ummadda qoriga keliya ayba takhasus u leeyihin maanta qofka dhulbahantay xabadda adiga aad ku bilowdo isaga faa'iiday u tahay horena waad u aragteen markhaati ma doonto marka wax kala dhihi maayo dagaal dambe hadduu deegaanadaasi ka dhaco dhulbahantu waxay istaagi doonaan burca markay tagaan burco jooga isaaqow jooga isaaqow jooga foolxumadii aan ku soo arkay maxaabiistiinnii mid lamida ayaa dhici doonta jooga jooga intay goorigoor tahay jooga hala joogo waxaa kaloo xusid mudan raalliga ahaada oo socdaalkaygii sanadkii 2023 dhammaadkiisii aan ku tegay magaalada laascaanood iyo buuhoodle iyo deegaano badan oo ka mid a maamulka waxyaabihii aan soo arkay waxaa ka mid a oo weliba cajiib gelisay dadka halkaa deganna aan la dhima doono wax kala maaha dadkaa waxaa ka go'an intay gabari ka nooshahay mar dambe in aan hargeysa laga maamuli doonin gabar intay ka nooshahay waa laga yaabaa 4 horgala 5 horgal ah 6 horgal ah 10 horgal waxaa la yidhahdaa luuqadda dhexe markaan ku fasiro dhuuni qaate annagu dhuuni qaataan u naqaanaa koonfurtan ka imaanay meeshaan horgala looga yaqaanaa annaga qofka horgalka si kalaan u naqaanaa laakiin horgalku waxa weeye waa dhuuni qaate laakiin markaad muqdisho joogto qofka horgalka waxaa la yidhahdaa qofka uurka gala nikaaxa ka hor annagu mugta si kale u naqaanaa meherka ka hor qofkii uurka gala isagoo uurka ku jira kadib meher ku dhaco horgalaa la yidhahdaa si kale markaan u dhigo qof aanan aabba lahayn laakiin idinku waxaad u taqaanaan dhuuni qaate marka dhuuni qaate kasta oo maleega qorshe kastoo ku salaysan arrintan waa lagu hingoobayaa bal isha aan ku hayno bal hadduu duulaankaasi hirgalayo waxaa kuu soo gudbin doonaa insha allah isla barnaamijyada soo socda ee facebookan beejkan cabdullaahi balwaan wixii soo kordha dhinac walba ayaan ka eegi doonaa aadaad u mahadsantihiin ballanteenu waa muuqaalada barnaamijyadayda ee facebooka beejkan waa la soo kordhinaya halkaana si isdaba jooga ummadda Soomaaliyeed ee ku xiran page-kayga mid ugu soo dhigi doonaa si xaqiiqda iyo marxalad walba oo taagan aad ula jaan qaadaan hadduu alla idmo aad baan idin salaamayaa balanteenu waa la jaan qaadista barnaamijyada aan soo gudbiyo ee ka baxa facebookan page-kan cabdullaahi balwaan markastana barnaamijyadayda inta uma badni waxaad iga daawo kartaa youtube-ka cabdullaahi balwaan waa youtube live-kan aan kor soo dhigi doono markuu dhammaado ayaan kor soo dhigayaa youtube-kaas ayaad wixii abdayda kala socon doontaan insha allah aad baad u mahadsantihiin guliyo gobonnimo 2 fursadood baan hadda ka faa'iidaysanayaa fursadda ugu muhiimsan ee jiritaanka dadka deegaanka si degan waxaan halkan uga caddaynayaa anigu waan idin taageersanahay waa idin garab taaganahay maamulkiinnana waan taageersanahay cudud kastoo ciidan oo hargeysa ka timaadana sidii aan shalay afkayga ugu buufinayay ayaan ugu buufi doonaa hadduu alla idmo aad baad u mahadsantihiin ballanteenu waa barnaamijyada soo socda iyo facebooka page-kan cabdullaahi balwaan nabadgelyo